qofkii qof shacaba xabad ku rida wallaahi tiirka maxkamaddaan geynayna anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya habeenadan waxaa dhacahayay amni darro aad u foolxun oo ka dhacaysa magaalada muqdisho dad shacaba ama dad dhallinyaro ah oo waxbartay ilaahay ha u naxariisto waalidkoodna sabir allaha ka siiyo in la yidhaahdo waxaa dilay ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed waa dhacdo aad u foolxun waxaan rabaa halkaa in uga faa'iidaysto dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel joogo ama ha noqdo mid istaaf ah oo madax la socda ama ha noqdo mid ciidan ah oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan qofkii qof shacaba xabad ku rida wallaahi tiirka maxkamaddaan geynaynaa meel ka sokaysa oo aan geynaynaa ma jirto dadkii aad u soo tababarateen oo amnigooda aad u dhaarateen in khalkhal la geliyo oo si sahlan xabada loogu furana xaq ma ahan mana yeelayno kuwa hadda la soo qabtayna sharcigaannu horgeynaynaa waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed amni darrada inaysan qayb ka noqon ayagaa qayb ka ah sababtu maxay tahay waxaan hayaa intaas oo kiis askar dishay dad shacab ah ama askar ayagu dhexdooda iska dishay oo inta la qaatay markaannu maxkamaddii horgaynay labadii qabiilo inta heshiiyeen mag la kala qaatay ka bacdina uu kugu soo laabanayo qofkii shalay aad maxkamadda gaysay oo laleeyahay mag baa la kala qaatay arrintaasi waxay qayb ka noqonaysaa amni darrada jirta shacabka waxaan ka codsanaynaa in ay joojiyaan dhaqanka noocaasa oo qofkii maxkamad la geeyo oo qof soomaali ah dilay sharciga in la waafajiyo asaguna la dilo dil buu xaq u leeyahay magta in sharcigu islaamku waa oggol yahay laakiin duruufaha hadda jira awgeed haddii aannu sidaa ku soconno dad badan oo aannu jecel lahay baan u ooyaynaa waa in la joojiyo waa inaad joojisaan dhinaciinnana ka adkaysaan amniga oo magta xunta ah oo aad kala qaadanaysaan aad joojisaan maxkamadaha waxaan ka codsanaynaa dadka falalkaas gelahaya